maanta waxaan rabaa inaan xoolaha ka yara iftiimiyo hawl aan galay waqti aan takhasus u lahayn ma ahayn waxaan u aanbarsay oo cilmi luqaad baa loo baahan yahay qofku inuu afafka barto marka uu horta afkan doonaya inuu galo laakiin anigu markaan galay waxay igu kalifay duruufaa igu kalifay su-aalahan isweydiiyey waxaan bilaabay 1919 haddaad xusantii 1919 waddanka Soomaalida oo markii burbur badan ku dhacay bay ahayd Soomaali badanna qaxooti dunida ay ku noqotay dabadda Soomaalida markay isu timaado dhulka qaxootiga sheekadii su-aalaha la isweydiiyey war maxaa Soomaalidu taariikh hore ma leedahay oo taariikhdeenu waxay ka bixi weydeen qabiil oday sheekh hebel baa halkaa ka soo degay dabeedna intaasuu duriyada uu ku dhalay dunida iyo sheekh kale isna halkan ka yimi intaasuu bay ahayd sheekhyadaana waqtigoodu waa qarnigii 13aad 14aad ayaa lagu qiyaasaa taariikhiyan markaa waxaa soo galay war meena taariikh kaleba lahayn ummaduna haddaanay taariikh lahayn oo qolada ka dambaysa aanay dhaxlin dee waxay u shaqaysato garan mayso iyo wax dhalinyarada hibadeliya niyadeliya oo waad aragtay intaa waxba haddaan magaalooyinkaa dibadda u tagtaan taariikhdooda sida loo shaqeeyo museums baa madxafyaa loo sameeyaa waxaa la oranayaa waqtigii qarnigii caynkaasaan nahayn qarnigii kale caynkaasaan nahayn marka waxaa qasab noqotay war Soomaalidu ma haysataa taariikh su-aashaasaa la isweydiiyey dadkii markaa su-aalaha isweydiinayo ayuunbaa ka mid ahaa aniguna dabeedna ninba meel buu ka bilaabay waxaan igula jiray nin diinta kiristaanka bartay solusiisii u bartay dabeedna wuxuu yidhi anigu ereyo badan oo af Soomaali ah ayaa waxaan ka helay Bible-ka ereyo af Soomaaliya baan ku arkay Bible-ka nin kale oo diinta islaamka aad u yaqaano quraanka wuxuu yidhi anigu ereyo Soomaaliya baan quraanka ka helay sheekadii way dheeraatay markaa example wax la yiraahdaa ilma nabi nuux sida ay aaminsan yihiin qoladan masiixiyiintu afartii wiil u dhalay midba magacyadiisa nin baa ka mid ah la yiraahdo Tumaal ninka Tumaalkii waa ninka birta Soomaaliya waxaa ka mid ahaa nin la yiraahdo Hoobal ninka Hoobalkina ilmadiisii weeyaan waa ninka heesaha iyo aadam labada kelmadood af Soomaaliyeed way ku jiraan marka su'aashu waxay isweydiiyeen markii Bible-ka dadkii ku qoran af Soomaaliya saxadu leeyay saxadeen quraanka hadda noqotay waxa jira asxaab al-ayka baa jira quraanka waa jira tafsiirka jira wuxuu oranayaa ayka waa kelma عراهين عربي عجمية كلمة عجمية وي وأصل تيجونية هاي الغابة وأقول هذا كلمة هو هذا كلمة أي هو أي بين نقطتين ثم هذا هو أي ونوتي غابة واحد كذا تطبع مركها واحد تحدد مفراعلة مساعدة هوري أيضا الصومالية دad Soomaalida way soo dhowdhowyiin aragga markaad aragtid waxaad arkaysaa handhoolkii buu sitaa waa handhool aynu leenahay halkan gabadhii sidii ay u labisan jirtay ayay u labisan tahay oo markaad sawirada aad aragtid dadka midabkoodu waa brown maaha cadaan madowna maaha waxaad soranaysaa markaa ragga dumarku way ka cascas yihiin ragga wada aragtaa dumarka waa la caseynaya ragana waa xoogaa madow baa lagu darayaa waxaa markaa ka oranaysaa wax badan baa layska shabahaa horta aragga Soomaalida hadda waa taqaxday meel walba tagtay dad haddana cilmi janiyaad ama genetics
dadka Chinese waa lagu soo kala saaraa inta aad tahay iyo meel ka tiri hadda waad aragtay Mareykan iyo dadka tagay iyo waxaa laga qaadaya dhiig baa laga qaadaya ama candhuuf baa laga qaadaya in aabahaagii uu yahay ninkan sheeganaysa baa lagu kala saaraa dambiyada ama hadda lagu baaraa cilmi janniyadka ama jannatiisa Soomaalidu waa meel walba tadsay dadku markaa waxay leeyihiin laga shaqeeyo dunida oo jannatig baa la leeyahay dadku say isu xigaan ayaa ay leeyihiin qolooyin u leeyihiin haba boqoloo qof oo Soomaaliya ayaa laga qaaday hadda weeyaan 2004 waxaa ka qaaday jaamacad ku taala Denmark Copenhagen dabeedna waxaa la baaray Chinese-ooda Soomaalidu waxay yihiin 78 boqolkiiba 78 waxay noqdeen qolan la yiraahdo E3B1 iyo 3 iyo B1 haddaad buugar gashid buugarka aad weydiisid E3B1 wuxuu kuu soo saarayaa kelmadda Soomaaliga meel walba ka helaysa ka sheekeynaya Soomaaliga ku sheekeynaya boqolkiiba 15 boqolkiiba 5 waxay leeyihiin waxay noqdeen qolooyin kale boqolkiiba inta soo hadhayna waxay noqdeen yana qolo kale ayaa noqdeen boqolkiiba 5taas waa Nigeroid waa dadkan Bantuga ku nool south of Nigeria ayaa boqolkiiba 5 Soomaalida ku shiraa laga helayaa Chinese-ooda boqolkiiba 25 waxaa laga helayaa Asiatic baa noqdeen haddii waxa weeyaan waa dad ama Carab ah ama Hindi ayay ka soo jeedaan boqolkiiba 78 waxay noqdeen qolada la yiraahdo E3B1 dadkaas adduunyada oo dhan bay joogaan Europe baa ka helaysaa Mareykan baa ka helaysaa wadda percentage baa ka jooga for example Greek hadda tatid waxa laga yaabaa boqolkiiba 23 dadka cadcad ee Greek inay E3B1 yihiin Talyaaniga sidaa u raac Israa'iil Beirut Lebanon dhulkii xadaaradii hore oo dhan ka samaysmeen oo dhan dadkaasaa laga helayaa percentage badan baa ka jooga dadka waxbaara waxay yiraahdeen dadka E3B1 leh ayay ahaayeen dadkii sida wax loo beerto geeyo Yurub dadkii Yurub geeyo sida wax loo beerto waxay ahaayeen dad sita China 3B1 dabeedna aad baa loogu doodi jiray dadkani cid ay ahaayeen dad Yurub hadii doortay taariikhda Yurub baa wato oo ilbaxnimada waa tan haysa marka annada ay ahaayeen cid walba way ku doodi jirtay dad ka tegay Middle East ayaa badida la sheegay jiray dadka waxaa ka mid ahaa Yuhuud oo kale ayaa sheegay jirtay annaga qaadnay oo keenaantaas waxaa yaab noqotay in dadka ugu badan ee leh bahalkaas ay noqdeen dadka Geeska Afrika jooga ee Soomaalida iyo Oromada wadatan isaga marka waxaa la leeyahay halkaaba laga tagay markaa Geeska markaa laga tagay dadka EB3 ilaa geeyay beer sida waxay ka tageen Geeska Afrika hadday mareen baa markaa la sooranayaa waxaad arkaysaa markaa yaa ku soo xiga dadkan barbarista la yiraahdo ee North Africa taga iyo dadka hadda Masar deeqa qaar ka mid ah ayaa iyana leh shiinkan taas waxay tusaysaa markaa inay dadkan isku xidhnaayeen dadkan East Africa degan iyo dadkan North Africa degan ay isku mid ahaayeen afkoodiina hadda dadka nool inta hadda joogta afafta nool xiriir badan baa ka dhaxeeya waxaana la isku yiraahdaa Cushitic languages after Cushitic language
marka southern cushited eastern cushited northern cushited oo ah kuwa barbarista iyo degaa Algeria iyo xidhiidhada cusubi waxay keenayaan oo hadda scientific ah oo genetic data ah waxay keenayaan Soomaalida inay ku xidhan tahay ama dadka gees Afrika nool Soomaalida inay xidhiidh la leeyihiin dadka North Africa iyo dadka Ilaahay oo ahayd halkii ay ka bilaabantay marka la yaab noqon mayso wixii awal midabka uu la arkayay ama la arkayay sawirada ama isu eegyihiin waxa dhici karta marka xiriir badan inuu ka soo bixi karo haddaba Masar maxaa bashirada Masar muddo badan ay u qarsoonay Masar Afrika taala waddan Afrika ku yaalo weey waxa la leeyahay bahalaha farqoran buuraha la dhisay ahraamta la yiraahdo civilization xataarad in 5 sano jirtay ayaa meesha lagu arkay waqtigaana waqtigii nimanka daaladuna ay dunida qabsanayeen ee Yurub ay hore u marsay way ku adkaatay inay qiraan inay dadkan xadaarada sameeyay dad madow ahaayeen sababna waxay yiraahdeen dadkan waa Asiatic waxay ka yimaadeen Middle East ama waxay ka yimaadeen Yurub ayay way cadeeyeen dadkii madooba waa la cadeeyay oo waa loo diiday hadii kale isticmaalkii ma shaqeynayo waan ku xoreynay waan ku ilbixinayaa ma shaqeynayso marka always hada culture waa la isku gumaysaa way diideen inuu daadaan nin reer Senegal oo Sheikh Dayib la yiraahdo Sheikh Dayib oo muslim sidoo kale Senegal waa waddan muslim ayaa Faransiga arday u tagay tontanaadkii wuxuu bartay fartan hero karfiyada markuu fartii bartay ayuu ereyadii wuxuu ku yiri war ereyadan waa erey Afrikaano soo wuxuu yiri waa aftayga anaga xateedii waa reer Senegal bay nimankan ka tageen waxa yaa badnaa maraan madaxweynaha riyaaliya mufti aan la soconaan Senegal qolada Senegal waxay leeyihiin gees Afrikaan kan nidaamka annaga aan niraana halkaas aan tarnibi waxaan laana bari maan tarni ayay yiraahdaan waad nootiino aragtiyo badan oo dunida waxay sheegayaan in dad bini aadanimadu iyo dadka bini aadanku meeshay ugu horeeyeen ay tahay East Africa iyo inta gees ay tahay oo maalin walba la helayo wax cusub hawlahaas markay halkaan marayaan waqtigaasi baan markaa isku dayayo iri balbahalkanaad bahashan aragti waqti badan waan haysto qaxooti baan saaca shaqo badan oo aan hayay ma jirin marka buuyaad badan ayaan soo iibsaday meel kala taal ilaa hadda waa iibsaday hadaan helo buug aan meel ku arko ma baranay anays baray inta yara aqaan waxaan ugu talagalay in idinkoo kale aad bilowdaan in dad badan ay xiiseeyaan oo iga daayar oo wax baran kara waxa qofku markuu daadaa gaaro in waxba baran karo waa ay baadhici laakiin idinku haddaad iyo dhalinyaro kale oo badan haddaad xiisaysaan oo ay idinku abuurto wax yaroo xiisaa aad markaa aad raacdaan oo aad ka bilowdaan dadkii ku hadli jiray afkan ee xadaaraddaas sameeyey ee maanta Masar ku nool af carbeed bay ku hadlaan laba door bay aftooda bedeleen mar waxaa qabsaday Giriigga iyo Roomaanka afkiibu ka bedelay dabeedna islaamka oo carabtu horseed u tahay baa qabsaday dabeedna hadda af carbeed bay ku hadlaan marka wixii qoraa idaaradu way ku qoran yihiin laakiin dadka ku nool ee afkaas ma hadlaan af carbeed bay ku hadlaan marka ma garanayaan wixii waa af dhintay oo aan noolayn dabeedna nimankan aad wuxuu baaraa waxay dooneen afkii inay raadiyaan bal hadda af u dhow si ay u furi karaan ninkii naabo mar Faraas ayaa bayna taariikh akhrisateen ayaa Masar qabsaday markuu Masar qabsaday dhalinyaro oo shaabirood dhagax meeshii laga helay baa wax la arkay fartii hore ee Masaarida iyo fartii Giriigga
oo isu hoos qoran oo magac sheegaya nin xukuumi jiray oo boqorada si gaar ah loo qoraa wax la geliya xaytaan baa la geliya haddaan markaa barataan magacu xaytaan ku jiro waa boqor waa magacii boqorta markaa waxaa la arkay kilobatra boqorada batra loo oran jiray magaceedii baa ku qoran oo afkirii ku qoran afkii faraacinada horena ku qoran iyo ninkii xukuumi jiray رومان هي سبع عيش في قرية سيزر مس أنتوني سيزر سيزر مس أنتوني مس سيزر أنتوني أنتوني لما دي بقى متى من عيله دي بقى يشوفها بهذي لما دي يراه شن حرف بالع توري والله تاسو بابا وقتها تاسو نتابع وقتها لما ده هل تاسو قبل رابع افتح أورفيا نتاسا يعني فرنسيسة شمدلون اللي يراه لما فرتي ولا باري ولا برتي ديكشنري لو سمي واحد ليس ايجيبشن ديكشنري بدش هذا قري وهذا ليس درامر تي اوف ايجيبت افتر دتي هيا درامر تي لو قري او لو قري ديكشنري ريديسي وسو لو برت marka waa wax la baran karo waa baran karo sidoo dadka ay baran karayaan waxa af Soomaaligu ma qornayn markaa af Soomaaligu waqtigan la qorayo buugaagta afka Soomaaliga ma qornayn buug walba markuu bilaabo wuxuu qoranayaa afkii hore wuxuu leeyahay afka Soomaaliga iyo gaalada iyo dadka cafarta ee degaa ayuu aftoodu u dhow yahay qaar waxay qoranayaan waa af Carabi u dhow waa af Carbeed qaar waxay qoranayaan afku waa afka Yuhuudda Hebrew cibriga lagu hadlo ayuu loo yahay dadkii markaa ka shaqeynayeen cibriga iyo Hebrew iyo Carabiga way qornaayeen ilaa xitaa amxaarada bay soo gaareen Soomaaliya afka gaalada iyo afka cafarta midna ma qornayn marka qofkii ma garanayo in wixii ayadiisu nasiib walaal markii afka Soomaaliga la qoray Oromadana waa la qoray Soomaalida u qortay Oromada hadda Itoobiya alfabeetka Soomaalidu bay isticmaalaan wala dabadna waxa uu soo baxaya ereyadii ayaa artay buud baan akhriyay waxa artay in kelmadahani waa carab laakiin markaa artay kelmadii waxay artay kelmada Soomaali ah marka hadda waxaan rabaa inaan soo toobo ka hadlo dhowr meelood mar waxaan ka hadlayaa ereyo Soomaaliga iyo ereyada hore say isugu dhow yihiin mar waxaan ka hadli doonaa barsheekooyin waxyaalo dhacdooyin oo Soomaalidu حتى أنا بدي يقينه وهترى الشباب نقولنا يوم مثلا إيه هي أيام الصوت عالي مثلا حتى عربنا واحد يجي بلده وتفرت صور هذا هنا حتى نطير رموش شنو بلده السجلات سوي إيدي وهذا يصير مثلا حتى اللي بتقول ما فرشحن يقامع هاي أو أظن هذا بسوي كريس لا آخر تاني horta fartoodu shaqal ma laha waa shibane waa consonant laakiin fawris ma laha yani markaa waa shibane waa sawir markaa sawiruun baa la isaas dhigayaa laba sawir markaa ma garanaysid dhexda wax ku jira iyadoo caynkaasa haddana waxay anigu waan ku diiday run ahaantii waxba iga soo baxay laakiin iyagu waxay yidhahdaan waa وألف بيني هذا همسة ويا بيني بس ماله واحد يقولون يعني شبانيان ما لها الشغل هل كانوا واحد يراجع هو أوكي وضعنا هذا واحد يقولون يعني عين أبا عربي عين أيوه تعجبني هذا واحد يقولون يعني با هذا واحد يقولون يعني دا وحي هذا الدعوة بينهم ها واحد يقول يا وحياة زمان أفت Soomaaliga waa da weey waa da kaas waa fa bahasha u istaagay kaas waxa weeyaan waa taaf ka ayuu kaas waxa weeyaan ha waa ha waxyaalaha ugu sare wey halkaa ii joog kaas waa xa eeg hadda waa xa
bahal sharaarad muxuu yahay xarig waa xarig eeg hadda isu qiyaasata waa xadii waxay yidhahdeen waxa u taagan xarig taas waxa weeyaan waa kha inadu ma lihin laakiin iyaga waa kha ma u taagan taas waa sha taas waa ya buu taagan yahay taas wuxuu u taagan yahay waa ja jiib ja ayuu noqonaya taas u daran is very interesting hadda ay jooji taas waxa weeyaan waa qa bahalkana eeg hadda meesha eeg hadda karbadba waa qar hadda waa qar waa buur laga dhaxayo waa qar ha in waa qar qa bay u qaateen markaa iyadu ay qa buu taagan yahay taas waa la halba taas waa ma bahashuna bahashu waxa weeyaan way duumaysa bahashaynu oran jirin mootahay oo shimbirta indhaha waaweyn leh taas waa na waa biyo soconaya waa waves water waves weeye na bay iyaku u qaateen marka waa niilkii noqonaysa ha tani waxa weeyaan ya ma niilkii noqonaysa Soomaalidu waxay yiraahdeen ardu markaa baaliya waxaan nay ma taqaanaan nay ha biyihii baa nay halkaas biyaa nay ka soo بدأ النيل نيل هو هو كان وقف هذا وقف حلال باسمها كلا حيا وقف حد ليا وباسمها حد ليا يتوافى ها هذا دول مثلا الصومالي واحد رئيسا صومالي واحد لا ده بعض رئيسا ده هو سي صومال ده اوكي ويري yaadu way raacaysaa isagii yaadu kelmadu waa dheh qura wuu yidhi way tiri waan idhi waan nidhi eeg hadda dheh baynu saasoo dhidii baynu wada isticmaalay soomaaliya raaca buu isu bedaa hadda wuu yidhi way tiri waan nidhi eeg hadda marka waxaa dheh iyo ree waa isku mid dheh iyo ree labaduba waa isku mid moote waa afkiiba hadlaya moote taas waa sa wixii sa taa iyo taas wey taasuna waa dhowr codod inaga masalada waxay codteen waa isku wada midoo sa baynu wadanayna iyadu waa sa kale oo waa mootahay saadkiiba si intaa inuu tutaa waa ilaa 26 ولحية شقل ولحية لبعض شبه باجر فواس هو النوع هو ثلاثة هل كان ما راس حقوق رتوت يعني أيوة واحد فوس وضحية لبص صور مرة لبص صور باستعمالية مرة 7 صور باستعمالية مرة واحد استعمالية صور قرآن يبقى واحد سوقات تيف ضايع صور قرآن استعمالية متى هذا متى ساوي يا for example how says waa x koraha uu sheegay hada aragtid waa x ama ha markay sharxayaan waxay tuleeyeen waa duri cushada waa duri cusha oo waa abo kala oo la harsanayo ila waxay niraahdaa hadba niraahdaa duriya harkiisa gaari marka duri kale iibsanaysa xaq harkii baa qaaday harkii baa ka iibsanay duriya had waxa weeyaan waa had ayay ka soo jeedaa in koorada taas marka wada for example marka hadaa siibay hada adinta Allah marka bedel taras hatta after Somali wuu lumaya waayo erayadii fotobeelada way ka lumayaan anigu xogaa yar u baan oo soo haray inta magaalada iyo afkale ku soo daray waayo haddaan wuxuu dishineer lahayn aanu qorrayn meel oo af qorrayn uu lumaya hatta waayo caruurta ahaydeen
haddaad miyi qabateen ma bisiino miyi ma tegi marka carruurta ahaydeen annaga waktigeedii miyigaa nala deyn jiro miyigu miyi yar ma ahayne miyi caano iyo xoolo iyo joodaan bay ahayd carruurtu intay saa u fadhiisato ayay dhidhiibsataa hudaha baa la dhidhiibiyaa dabeedna waxbaa la qaadaa waxaa la yidhahdaa biitoy biito biito xariira nayshay deyran dhowdaba oodan waxbaasaa la akriya dabeedna waxa la yidhahdaa ninkay ku dhammaato heesu biitoy laabo baad laabanaysaa lugta marka biitoy laabo markaa biito waa lugta biito waa lugta weeye innaga wayna ka luntay waxay ku hadhay qura afkaasi waxay ku hadhay ciyaartaa soomaalida biitoy laabo waxa weeyaan lugta laabo haddii kan wuxuu qoraa lugta laabee wuxuu leeyahay biitoy laabo mootay marka waxa weeyaan biito waxay ka soo hadhay ha haddaad aragtid markaad sii baadid qaar saaxiibaday oo markii af soomaalida baadidii baa waxay hadda waa aya waxay yidhahdaan afar soo dhambe af soomaalidiiba ka tageenba marka qaarkii ay sii dheeraadaan waxa weeyaan waxay yidhahdaan afka laatiinka lugta waxa la yidhahdaa bedia bedia la yidhahdaa weli ba'di yeelata soo biito maad lahayn bedia yidhahdaan faransiiska iyo laatiinka iyo boode waa b g b t soo matala afka anglo-saxonka bida fna way isu bedeshaan ba fa waa labaduba waa laabaya fiis bay yidhahdeen fiis bay yidhahdeen halkaa aduu biita lahayd fiis buu ku leeyahay ama food weli waa kelmadii waa watahay oo saa u tortay oo ba'dii baa fa noqonaysa marka dad baa waxay oranaya afkan baa laga sii tegeyey asalku waana liduusiisa dad baa aaminsan afro-asiyaatiga ayaa ugu horeeya oo isku wada xidhan yihiin marka dambena aariyantu sida dadtuba ay u wada leeyihiin asal ayaa aftuna asal u wada leeyahay sida dadtuba asal u wada leeyahay ilaa dadku 99% 100% genetically isu mid baynu nahay waxaweye qofka bini aadamka ama caddow ama casow waa isku mid baa tihin marka mar haddaad isku mid tihiin marra af baad wada lahaydeen it must be one time aad af wada lahaydeen baa imanaya marka saasay afaf ula balaamaya marka biito biisa xariira halkaas waxaad ka helaysaa qarra waynu aragtay har waynu aragnay soo ma hadda ku celi shimbirtii yarameede waxaa halkan soo halkan hoose shimbirtaa u hooseysaa maxaad aragtaa waa diyaajad yar waa furuuja idan maxaynu nahaa diyaajada yar ma naqaano laakiin dilaayadan waxa wey way dilaacday waa utun dilaacday ereyga loo sheegaa waa dilaac markii dilaacday waxaynu idhahnaa wac ay hadda waca buu ka siiyey wixii macawisteydii wac bay tagtay way dilaacday soo maha caadu xitaa a bay noqonaysaa wa nalkii baa wa-yari mootahay wuu dilaacay weeyaan waa aroortii markuu beriyo waa waagi wa haddaad nalsiiso waa wac eeg hadda waa isku wada mid waa wixii baa dilaacay okay waxaad qaadataa kelmadda reer koonfureed oo aad u isticmaaleen waxay yidhaahdaan wicilkumaa ma taqaana wuxuu yahay waa garac garacu muxuu u sheegaa waa mid aan aabba lahayn oo isa dilaacay oo dilaacay waa ku tarta way isa dilaacda aabba ma laha wala waxay yidhaahdaan waa wacan waa mid aad u isa dilaacday baa tahay markaa wacdi halkaas ka soo bilaabaysa moota iyadu waxay yidhahdeen marka sheekay kalaa iyadoo tushaysa af carbeedka waxay yidhahdaa maxaynu yidhahnaa maxaa la yidhaha af carbeedka bida noqon maxaa la yidhaha farak ya farak ma yidhahda carabdu farak ma yidhahda maxaynu yidhahnaa oo kale iyadu farak wacan haddana waa isu noqonayaan farak iyo wacan haddana waa isu mid bay noqonayaan oo wax isa dilaacay buu kuleeyahay markaa farkii waa taa waxaynu u gudbaynaa ereyadii bal hadda ereyo dhowra ayaa halkan idinku soo qoray oo aad arkaysa
سدها بل واحد رجع واحد رجع واحد قصر له وين هاي هذا هاي حاجة تاسي xadhiga نادي يوم هذا وتشوفه سيسوما وما يقول نادي وشيته حاجة يلا بنا بعد إسبوع اللي جاي يلا بنا واحد يسجل بعد حاجة يلا بنا أو تاسع يسجل كودي xanuun ba markaas wax la soo war maxay noqonaysaa ubrad xanuun walaanta qaad maya waxay ku fiican nimankan nima balaayaba saaridii hore markay fartooda qorayaan limit dhinaca kale ku oranayaan hadda waxaan u jeedaa waxa wixii oo sawirana ma tusinaya wixii oo sawirana halka ay dhigayaan halka intay iyo na isbarbardhigeen ayay halkaana waxa dhigeen هذه هذا قوله اللي تبيه هذا رأي سمعته حليم هو حليم أفكار أورانا يا بشرو أفعربيت ما أورانا يا حنا واحد إنجليز ما أورانا هبرونا ما أورانا لكن صومالي يوعي حنا مرتو اللي تي مصري ده وحوله رجل هذا في صوري وعاد رئيس تلبد واحد صومالي ما رئيس اوكي واحد ثالث هذا يبقى نص ساسي يبقى اسمه يا xalaal baa marka برتاسو لك انجليز داوعي لك انجليز داوعي كونسيل هاي وحبال وترى تبتلو نكلو أفتلو أورانا يا متشلو سمعت هو صون هذا روتين هذا وطونه هي الصع أو يبقى الواحد أيوه سبر بدي فجأة هل توقع تاني هس ولا زوج تاني قال هس يا ولا زوج تاني سن هو هس عارف متى صومنا حرية وتبدو هو هس هذا واحد دودي تده عن واحد يطلع هس لكن هو تلهسي واتر وحي قام روحه سبت أسوار هذا تعي قرن ها يلا بابا أيوه بربر لي مرت سنة يقول كول قبو كول بوتويل أفترى ورانا قبو با وقبو وكول بس رنتي ولا تنسى وحصوقات يا نعم السوقات يا يا بتوحي بيت هام هذا بحال قريسه قاعد هو قليل وي هو قليل وي وقليل wuxuu soo qaatay qa iyo sa iyo na uu isla badhigay qa sa na baa soo saara qa sa na وقع يسع ينا في جريس يجينا وحي difficult وقصن وبعد وزنت وقصوي ويا واحد سوق قصن difficult وزوغا وحي ها قا قر قا را صا قرص وده زوري بيري كوفين بيري قرصون مركز قريس وقريس هو بيري بتقول له قريس ها وحقا ح يا لما نسودو هي يا قرحتها ها markaas wuxuu yidhaha fijirisi xay waa naked buu yidhi naked ha حي منك محي نقول
بل هذا دا تدرتي حيدن حيد حيدن حيد وش حيد ها وش خاوي واحد ها ح وحرك اسا هي باء ورد اسا هي تاء هذه السكري مجازوعي وحاء باء تاء مجازوعي امبارس امبريس امبريس وحبط امبريس وحبط وحبط بود ايه طبعا لو قلنا سوقا waxaad helaysaa dambada badan oo caynkaasa oo af soomaali markaa aragtid kugu noqonaya adigii oo wixii kala noqonaya markaa ereyadii ba haddana halkaa ku dhaafno waxaan u tegaynaa nimankan waxay ahayd niman ilaahyo badan aaminsan ilaahyadoodana waxay ka dhigan jireen qolada diin wadaadadeenu xalaaqa hadda waa qolada hore ka sheekeynaya masaaridii hore waxay ka dhigan jireen ilaahyadooda waxa ay arkayaan ee u dhow wax walba waxaase u weynaa ilaahooda ugu weynaa ilaaha cageeta oo magac ay u bixiyeen iyo ilaah ay yidhaahdeen waa tii aanu ka soo tafiiranay oo ahaa ilaahayada ugu weyn oo ahaa ilaahii aanu ka soo jeednay waxaa la yidhahda gaaladii magacii waxay u qoreen asiris asiris bay yidhahdaan yuhuba qaar asoris bay yidhahdaan qaar adigu waa isir bay yidhahdaan markaad akridid kelmadda waa isir isir maxaynu nidhahnaa inad isirku waa halkaa ka soo bilaabatay isir marka waxa weeyaan waa four fathers aabbayaasha marka waxay caabudi jireen aabbayaashoodii hore marka aabbayaashoodaa hore waxay oran jireen isir afkan ereyadana soo qaaday ma afka soomaalidu bay ku jiraan si afka cafartana way ku jiraan because waxa weeye dadka deesha afrika ku noole kushatigiisa la yidhaahdo soomaalidu waxay ku leeyihiin hadda maapkaan halkan idiin soo qaaday ka hadlaya soomaaliga maapkaas wuxuu ku leeyahay markii la ahaa second century 500 BC 500 BC waxa weeyaan 2500 sano ka hor nabi ciise 700 ka horeysay iyo 2000 hadda joogno waa 2500 geesan afrika sidii loogu noolaa ayaa nahada ku sameeyey wuxuu ku leeyahay meesha soomaalida ma joogto markaa waxaa joogaa asmaada waxweeyaan daduu yidhi wax la yidhaahdaa axmar daroor axmar waa buuraha harab ayaa axmar la yidhahda daroorna waa boosaaso buura ka shisheeya ayaa la yidhahda daroor marka buurahaasi dedegan ayaa jiri jiray weli soomaalidu ma iman meesha baa kuleeyay markaa dabeedna waxa weeye waa 500 BC wuxuu ku leeyahay second century waa 200 200 markay ahayd xitaa weli soomaalidu ma joogto meesha 200 markay wadanku 200 ah wasayna leeyihiin waxay ku leeyahay 8th century markii la gaaray 8th century waxa weeyaan the year 800 oo markaa laga joogo markaasaa soomaalidu dadka maxay ku hadlaa afkar ku hadla soomaalidu ay meesha soo gaadeen waxa weeyaan afkanaynu hadda ka hadlayno weligee matalaynu ku hadli jiray ama weligee matalaan lagu hadli jiray afaftu way korayaan way isbedelayaan innaga iyo for example oromada boqolkiiba 80 iyo 6 vocabulary way isku mid boqolkiiba 80 boqolkiiba 90 grammarkeenu way isku mid haddana laba afoo kala jaada ma waa afkeenu suu dhowleen sooma qolo kale inay ka sii dhow oo ku nool for example rendiina la yiraahdo ku nool East Africa Kenya marka waxa weeye geesan Africa after laga hadlo ku shiti language ku ah
afteenu waxa jiray mar waxayna soo dhamay afkuraaynu wada lahayn oo proto waxa prototype aftii ugu horeeyay la lahaa markaas marka dadkaas haddii faraacidadii hore laga helo aftaasi dadkeena waa Soomaalina waa laga helayaa afartana waa laga helayaa Oromadana waa laga maaha Soomaalida dadka haddaba isu isir bayna sheekada noqonaysa waxa weeyaan isu isir bayna yani meel baynu ka soo wada jeednaa Asian Egyptianist dadka Oromada maadada Barbarista we have to say toman baynu leenahay toman ancestry baynu leenahay toman laawash aynu ku wada hadli jiray baa barkirta Soomaalida inadu markaa afteenu hadda Soomaali uu noqday iyana aftoodu Asian Egyptian uu noqday waxba xilli inta dhaxaynay sida Portugiiska iyo uga dhaxeeya Talyaaniga sida Ingiriis iyo Jarmalka ay uga dhaxeeya it leeyahay laakiin sometimes marba waxa jiraysa nationalist baa noqonaysaayo dadku mid walba inuu wixiisa ku adkaysto waa soo horreeyna Soomaali ma ahayn afkii Soomaalida ayaa ku xoog weyn meesha ilaa inta la buruuf gareynayay inaanay jirin waa ku qasbaya aniga horeeya ma waayo nimanka waa la isku haystaa civilization kooda haddaynu yeelano markaa inagu civilization ummadahaanna wayna taraysaa marka waxaan rabaa dhalinyaradiina yaryar hadda waqtiga haysata masar waa la tagaayo hadda scholarships way bixisaa habaranino commerce iyo law iyo barata taariikhda ummadda u bara ummaddan waxay u baahan tahay inay taariikh yeelato haddii tala meel noqon mayso ya weligeed waxaynu taageeraynaa labada shiikh baynu taagnaanaynaa dabeedna ummad iyo qaran ma noqon karayno taas ay tahay assalaamu calaykum مثلا aad u mahadsanyihiin professor wixii su'aalahan aan qaadi doono insha allahu tacaala waxaa berigii maran qaahiro tegay baa hoteelkan ku jiray waxa ku yaalay sawirkaas wuxuu ahaa ciyaartan maxaa wala sugo ayay ahayd waqti markaas sanad loo ciyaaraa oo inankiina inta iska soo istaagaan baa san loo ciyaaraa waxaan filayaa waa meesha keliya ee Soomaali unba laga ciyaarta caynkaas laga ciyaaro meel kaloo laga ciyaaro ma jirto waxa kale la yaab igu noqotay waxa ahayd in marka museumka tagto kala museumka Qaahiro ku yaala ka waxaad moodaysaa adoo inaad meel dad Soomaali dhex joogtid in baad moodaysaa waxyaalaha marka faraacinta laga hadlay marka kulliga waxa wanaagsan insha Allah taala marka dib ay fursad idin timaado Masar tagtaan oo Ilaahay inaad museumkaas oo kala tagtaan wax badan bay idinka soo kordhin insha Allah taala arrinka labaad oo taabtay professor Pondoni inaan yaraadu istaagno waxa weeye waa tii markii colonialismka ama ay doonayeen isticmaalku doonayeen inuu dad Afrikada madow u qabsado waxa hagaysay principle theory baa hagaysay oo ahaa Darwin's theory oo isaguna waa in principle dadku waxay ka yimaadeen maxaa la yidhaahdaa asalkooda hore daayir bay ka yimaadeen saas oo soo socdeen Afrikaankuna weli daayirkii ku dhow that was the basically marka waxa weeyaan he's not fit qofka madoobay fit uma aha in uu isagu wax ismaamulo waa la maamula iyagoo halka principle-kaas hagay in haddana la yiraahdo civilization-kii madow baa lahaa laba caqliyadood oo isgelaya way noqon waayeen marka taasna waa very important yani in wax badanna waa la disprove gareeyay waxa la yiraahdo Darwin's theory inaanay theory-gaas wax ka soconaya aanu jirin oo runtii aan caqli lahayn way wax la arki lahayn markii uu ka joognay in arki lahayn dad daayir ka soo ka soo baxay marka bariyadan aan tan in origin koodu daayir inuu ahaa wax kale oo kasta oo lagu tilmaamo mid kale uu ka hadlay afkii dhintay hieroglyphiyadii ama maxaa la Egyptian language-kii ayaa la soo noolay oo grammar loo sameeyay oo maxay loo sameeyay inaguna kan ku hadlaynay ayaan ilaa imika waxaan lahayn standardization yani inaanu si qura loo wada qorin macallimiinta iyo iskuulada waad ku arkaysaan macallin class kuu soo gelaya biology walxaha buu kuu qoraya si buu u qoraya uu kaa baxaya waxa soo gelaya macallinkii af Soomaaliga si kaloo kuu qoraya macallinkii geographiga si kaloo kuu qoraya macallinkii historyga si kaloo kuu qoraya marka problemka ardayga wuxuu noqonayaa la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan waa waxyaalaha dhibaatooyinka inaga haysata ee aynaan ilaa imika xataa sharciga marka la raacayo asaaskiisu qofku markuu yar yahay oo luqadii la yiraahdo waxaasna waa sax waxaasna waa qalad inaga waa maxay waa jaantaada
markaas inaynu standardizationka afkeennii u sameynaan waa aad iyo aad muhiima marka taasna wax iyo taariikhda uu ka hadlay professorku oo runtiina taariikh muhiima waxaana nasiib wanaagno ah in maanta dadka ina farakutiriska ah runtii taariikhda caynka raacay eegay inuu nagala joogo oona fursadan uga faa'iidaysan karna biidn illahi tacaala marka su-aalaheena iman furun doona insha allah iyo maxamed boo maalintii labaad chance anu helna professorkan ka faa'iidaysano su-aasha gudiga waxay tahay ninka wasla shacari leeraa taariikhda oo galaan barnaamij ka daawasna faraacida soomaaliya isku xidhay markaa shayga ilaa hadda fikiraya waxa weeye taariikhdii kale qornayd waxaynu ku haynaa sheekhyadaad sheegaysa dee soomaalida badankooda ay gelayaan oo ka ugu horeeya oo noqonayo nine session ogta marka soomaalida dad kale ahaan jiray oo magaca soomaalida uma kala lahayd oo dhakadu ma ka dhacdo nine session ka dambeeyay aynu Soomaali noqonay mise waxaan islahayn si taariikhda wax sheegaysa dadkaas ka yimaadaan carabta inagu waxaan sheeganaa ilaa background ka taale marka Soomaalidu dad kale ahaan jireen oo وسؤال عاد وأنا مشكلة إلى حسب confusion إلى حتى إلى حسان وتم بديه وأنا توبة هاي الرسالة بدل السماء حتى وعن رسالة ورفض لو دور بالله جسمية أفكار ولا جسمية وإحنا هيستورية أفكار أورال ولا بالا أفكار ولا بالا أركيولوجي ولا بالا إما كوالا بتقول كذا يعني لما كان فرنسيسي كهري لاستيل waxay la shantu loo saro toon ayaa sawiradan dadkan ay noolaay dadkan shaariyo suuqa bisitaan ma aragtan horta sawirta dee nin qaawil u sawiray laba gool nin sitana mu sawirin nin sita surwaal ayaa ku sawiran meesha iyo shaab looda ayuu hor taagan yahay waxaad moodaa inuu looda caabudayo sida tan muuqata gacmaha u taagay iyo sida uu qurxiyay saaca uu qurxiyay taas waa dad kolley dad meeshu marra ma marna meeshu weligeedna qolo ma joogto adduunyada intii hadda xuduudta la samaystay dowladaha iyo la sameeyey dadku way socon jireen mooyse dadku way socon jireenoo from here to here dadku saas isu dhex geli jireen adigu mar haddaad meeshii ku nooshahay waxa laala wixii yaalla waad seedanaysaa ama shalay taale ama way cid kaamida baa tolay joogta tolay qaar baa ku jira oo kaamida oo dadka kaamida ayaa jira oo kaamida dood baa ka socota sanad shayso 3B1 haay oo dadka Eurocentric oo Europeans ka ay leeyihiin elongated Africans East Africans waa Europeans 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 ay nagu sheegayaan haay Professor Keita iyo dadka West African ka Senegalese la waa African hadday Masar jireen ay xukumi jireen waa African cadaankuna ay leeyihiin la يعني عندهم أنا قرينا في مادين ودي تاكي أنا قرينا في الصعود لكن ما وإلونجيت الإسلام كنا سو ويوروبيانز يوروب كتير لكن الإسلام كتير ما هو ولا سكان هيست which side are we this very interesting وعويان حتى تنسي مثلا يقول Egypt search بالله Egypt search وعويان وويب سايت أربعة لوربما والله سويسا هذا الصومالي سويسا هذا كيسا قالوا waxay doonayaan Soomaalidu waa dad madow oo Afrikaana oo Afrikaan la mid yihiin bullshit baa akhriyeysaan maxaa loo doonaysaan qaar waxay leeyihiin no dadkani waxay leeyihiin waa European bay leeyihiin Chinese European bay leeyihiin waa la mid yihiin taas murankaas uu jira waa la isku haystaa oo dadka professor laakiin waxaan aaminsanahay maadaama reality-du Afrikaan yahay sida theory hadda jirta in Afrikaan laga tago waxaan u leeyahay wala isku wada raacayba bini aadamku wuxuu ka tegay Afrika bikaasana isku wada raacay haddii Afrika laga wada tegay dee Yurubiyaanku way deesaa Afrika ka tagay badan oo sababtay taas oo way taasay taas oo waxaan ku akhriyay Egypt saartaas inaan Mareykanka America jooga dabadna wuxuu yiri E3B1 baan blonde hair tail waa blonde
blue eyes-na waan leeyahay waxaan leeyahay E3B1 sidee baad ii leedihiin afrikaa tagtiga marka haddaad leedihiin hor afrikaa laga yimi oo E3B1 hor afrika jooga hawtaan sidee baan u shaqeeyaa it's very interesting discussion marka bolodkaas lagu soo qoray wuxuu leeyahay awowyaagii wuxuu ka yimi Sicily jasiiradda yar ee Sicily ee u dhow Italy jasiiradda yar boqolkiiba 30 dadka ku nool waa E3B1 marka waxay adigu ma fudid ba Sicily ba tantii markii hore dee saafin ma tantii meesha la tantii laakiin blue eyes iyo waa cuntada weeye cuntada bedelaysa moodaa life iyo ayaa hadda Soomaalida waqtiyahan aad u qurbi jiray bahasha ayaa wax loola jiray bini aadamka kalarkiisu u horeeyay muxuu ahaa qofkii bini aadamka qof madow buu ahaa qof cad buu ahaa qof yarawa buu ahaa qof wasiis oo lisii waxay yidhahdeen marka kalarkan ayuunbaa ama caddaan karaa ama madoobaan karaa kalarkani wuxuu ahaa brown color buu ahaa bini aadamkii ugu horreeyay he was a brown color waana fact biological ninkaasu hadduu kor u baxana wuu caddaaday markuu hoos u socdana wuu madoobaaday oo temperaturekaasaa madoobeyey tii dabadda north Europe tegana wuu caddaaday tii south africa hoo africa tegana wuu madoobaaday qolada cilmiga janaadkiisu waxay dooranayaan 23 duruub weeye janaadka baa loo kala saaraa dadka 22 waxay shoogaan afrika 1 baa ka baxay 22 waxay teelaysaa afrika marka su-aashaadii dee dhinacaa dooteen u qaadanayna waxaynu ku adkaanayna waxaynu odhanaynaa halkaa ka tagteena annagaa source waa source waa halkan jannati buulkii hadduu ku badan yahay waxa la yidhaha iminka xitaa waa sida afafta marka laga hadlayo waxa la yidhaha afkeenu utaybi southern Ethiopia ayaynu kan imaanayna Soomaaliya hadda southern Ethiopia sababtu waxa weeye kushitig languages oo dhan baa jooga halkaa southern Ethiopia 25 af oo isu dhow baa laga helaya southern Ethiopia meesha afkura lagu wada hadlaya hadda la yimi baa loo oranaya saasay noqonaysaa marka jannati buulkii waa Horn Africa E3B1 Horn Africa ku jooga cidii kale ee meel kale joogtay E3B1 halkan uma tagtay ama cadaan ha ama carab ha ama madow ha السلام عليكم